Waxaa jira dad la qabsada duruufaha nolosha halka kuwo kalena ay iyagu abuuraan duruufo cusub si dadka kale ugu qasbaan inay la qabsadaan. Tani ma aha falsafad balse waa sheeko dhab ah oo ka dhacday dalka Algeria. Maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah dembiyadii ugu yaabka badnaa ee dalkaas ka dhaca. Sheeko sirteedu qarsooneyd muddo 14 sano ah. Sheekadu waxay bilaabanaysaa sanadkii 1994. Haweeney lagu magacaabo Amina ayaa tagtay saldhigga booliiska iyadoo la socota labadeeda carruur oo aad u yar. Waxay sheegtay in ninkeeda Cumar oo araggiisu aad u liito kuna dhow yahay inuu indho beelo ku dhowaad 24 saac ka badan. Amina aad ayay u ooysay waxayna ku celcelisay in ninkeedu uusan kaligiis meel fog tegi karin maadaama uu dhib weyn ku qabay aragga. Xilligaas Algeria waxay ku jirtay dagaaladii sokeeye ee loo yaqaanay 10kii sano ee madooba, xilli ay dad badan si qarsoodi ah u lumi jireen, qaar waa la dili jiray, qaarna waa la afduuban jiray, halka kuwo kalena aan mar dambe raadkooda la helin. Boolisku waxay Amina u sheegeen in laga yaabo in ninkeedu ka mid noqday dadkaas la waayay, inkastoo ay rajaynaysay inuu soo laaban doono. Haddana sanado badan oo baaritaan ah kadib, Cumar waxaa si rasmi ah loogu diiwaangeliyey inuu yahay qof la la'yahay. Carruurtii waxay ku koreen murugo, qoyskiina wuxuu la qabsaday maqnaanshaha aabahood, laakiin sheekadu halkaas kuma dhammaan. Sheekada yaabkii ugu badnaay ama meeshii ugu maceed way dhiman tahay. Intaan bilaabin muuqaalka horta noo like galay, haddana waa cusub tahay subscribe noo saar. Soo qaado koobkaada qaxwada ah oo muuqaalkan si degan u dhageyso. Haddaba noo bilaabo muuqaalkeena maanta. Waxaynu gudbaynaa sanadkii 2007 markii xaaladda amni ee Algeria soo hagaagtay. Boolisku waxay bilaabeen howlgallo ka dhan ah dembiyada. Habeen ka mid ah habeenadaas, 2 nin oo dhalinyaro ah ayaa lagu qabtay iyagoo wata xaddi dhan oo daroogo ah. Magacyadoodu waxay ahaayeen Yaziid iyo Rabax. Maadaama daroogadu aad u badnayd, boolisku waxay kala saareen labadooda si gooni iyo gooni loo wareysto. Intii lagu jiray su'aalaha, Yaziid wuxuu ogaaday in haddii lagu helo dembiga daroogada uu mutaysan doono ciqaab culus. Markaas ayuu yidhi, haddii aad iga yareysaan ciqaabta, waxaan idiin sheegayaa sir xallin karta kiis dhacay 14 sano ka hor. Boolisku way yaabeen. Yaziid wuxuu sheegay in saaxiibkiisa Rabax uu muddo dheer uga sheekayn jiray in aabihii uusan lumin sidii dadka loo sheegay. Wuxuu sheegay in aabihii la dilay kadibna lagu aasay gudaha gurigooda. Sida uu sheegay, dilka waxaa ka dambeeyay 3 qof: hooyadiisa Amina, nin la yiraahdo Xamiid, iyo nin kale oo la oran jiray Mahdi. Boolisku markiiba waxay u yeereen Rabax. Markii hore wuu diiday, laakiin markii dambe wuu qirtay. Wuxuu sheegay in isagoo 10 jir ah uu habeen soo toosay kadibna uu arkay hooyadii, Xamiid iyo Mahdi oo qaadaya meedka aabihii. Waxay qodayeen god weyn oo ku yaalay barxadda guriga. Markii hooyadii aragtay isagoo eegaya, waxay degdeg ugu orday waxayna ku tiri, waxaan kaliya meel kale u wareejinayaa geedkii weynaa ee qoyska. Laakiin Rabax wuxuu qalbigiisa ku hubsaday in waxa uu arkay aysan geed ahayn balse ay aabihii aasayeen. Muddo 14 sano ah wuu aamusay isagoo ka baqayay in haddii uu hadlo isaga laftiisana la dilo. Boolisku waxay u yeereen Amina, Xamiid iyo Mahdi. Amina waxay sheegtay in wiilkeedu uu daroogo isticmaalo isla markaana uu marar badan mala-awaal sameynayo. Xamiid wuxuu sheegay in maalintaas aasayay hooyadii sidaa darteed uusan goobta joogin. Mahdina isaguna wuxuu sheegay in Rabax uu daroogada darteed mar walba wax aan jirin uu sheekeeyo. Inkastoo ay sidaas yiraahdeen, haddana boolisku ma aysan qancin. Waxay qodeen halkii Rabax tilmaamay, laakiin waxba lagama helin.
Amiina waxay u muuqatay qof run sheegaysa, booliskiina waxay dib u xireen Raabax iyagoo ku eedeeyay warbixin been abuur ah iyo dembigii daroogada. Laakiin isla habeenkaas saqdii dhexe booliska waxaa soo gaaray cabasho cusub. Deris ayaa sheegay in guriga Amiina laga maqlayo codad qodis iyo burburin ah. Boolisku markii ay ag tageen waxay arkeen Amiina oo aad u walwalsan. Waxay ku andacootay inay habeenkii saqdii dhexe meel kale u rarayso geedkii qoyska. Jawaabtaasi waxay booliska ku abuurtay shaki. Markay gudaha galeen waxay arkeen god cusub oo gadaasha guriga laga qoday. Markii qodistii lasii ambaqaaday waxay heleen qalfoof bini'aadan. Baaritaan caafimaad ayaa xaqiijinayay in lafahii yihiin kuwo dad. Waxaa sidoo kale laga helay hadhaagii dharkii qofka. Halkaas ay sirtii qarsooneed ee 14 sano jirtay ku soo dhammaatay. Amiina, Xamiid iyo Mahdi dhammaantood waa la xiray. Markii dambe Amiina way qiratay. Waxay sheegtay in Mahdi uu muran dhex maray ninkeeda Cumar kadibna uu si kama ah u dilay. Laakiin Mahdi wuxuu sheegay in taas been tahay. Wuxuu qirtay in Amiina iyo Xamiid ay muddo dheer xiriir qarsoodi ah lahaayeen. Waxay ka faa'iideysan jireen aragga liita ee Cumar. Markii Cumar bilaabay inuu ka shakiyo xaaskiisa Amiina, waxay ku qanci jirtay inuu malaabaalo maadaama araggiisu daciif yahay. Ugu dambeyn, saddexdeeduba waxay isku raaceen inay Cumar ka takhaluseen. Maalintii Ciidul Adxa ayay carruurtii u direen qaraabadood. Kadib Xamiid ayaa xarig qoorta uga dhuftay Cumar ilaa uu ka dhintay. Waxay markii hore ku aaseen barxadda guriga, laakiin markii Raabax arkay meydka Amiina waxay ka baqday inuu maalin uu sheego dadka, maalin uu ka shafi doono. Sidaa darteed habeen dambe ayay meydkii ka soo saareen godkii hore, waxayna ku aaseen meel kale oo ka dambeysa guriga. Qorshaha Amiina wuxuu ahaa mid aad u xal dheer. Waxay rabtay haddii wiilkeedu mar dambe sheego meesha uu arkay aabihii lagu aasayo, boolisku waxba kama waayaan. Boolisku waxba ka waayaan. Laakiin markii dambe oo wiilkeeda lagu helay daroogada, taasna waxay u adeegsatay cudurdaar oo dadka uga sheekeynayso inuu daroogo isticmaalo. Muddo 14 sano ah qof walba wuxuu rumaysanaa in Cumar ka mid ahaa dadkii u lumay dagaalkii Aljeeriya. Laakiin hal sir ayaa wax walba bedeshay. Haddii uusan deriska ka caban lahayn qaylada habeenkaas, waxaa laga yaabaa in meydka Cumar aanu weligiis soo bixin. Ugu dambeyn, Amiina, Xamiid iyo Mahdi waxaa la horgeeyay maxkamadda. Sheekadani waxay muujinaysaa in mararka qaar qof uu abuuri karo daruufo been ah, kadibna uu dad oo dhan ku qasbo inay rumaystaan. Laakiin runta, xitaa haddii ay qarsoonaato sanado badan, ugu dambeyn way soo baxdaa. Hadday la soo gaartay gabagabada muuqaalkan, waxaa ka codsanayna muuqaalkan la gareyso, sidoo kale asxaabta u sii dirto. Isku day sidoo kaleeto inaad noogu soo biirto oo subscribe saarato, kambalelkan aad furato si ay ku soo gaaraan qisooyinka cajiibka ah aan soo gelin bartaan.